hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliya waqtigana adiga waa maadsantahay runtii arrin muhiim ah jirta oo ah haddaan rabno inaan horay u durjino debate ama dood inaan horay xoogaa u riixno waa inaan xoogaa ku dhiiran karno mararka qaar waxyaalo aan xoogaa ilaalin jirnay runtiina waxa meeshaan soo gaarsiiyay waxa waaye inaanan awoodin inaan mararka qaar waxa controversialka ah ama xoogaa loo arko inaan xoogaa dib uga degno annagaan xataa akademiyada ku jirnoon siyaasadaynin arrinkan markay timaado waa sensitive waxa laga yaabaa inay dadku si uga damqadaan iska daa ayaa jiri jirtay intii muddo ah taasina waxba ma xallin arrinkii mushkiladiisii weli way taallaa arrinka Mustafa Hadaati sheegay horta Soomaalidu markii gumaysigu qabsaday xorriyad iyo midnimay doonteen meel kastay joogaanba markaad aragto documentiskii iyo himilooyinkii ahdaaftii xilligaa jirtay labadaa qodob ay ahaayeen waxaan rabnaa xorriyad waxaan rabnaa midnimo waxaa ka dhashay Somali State-kii Somali Republic la dhihi jiray Somali State-kii Somali Republic la dhihi jiray labada gobol ee isku timid kaliya uma dhalan we have to understand this labada gobol uma dhalan wuxuu u dhashay Soomaalida citizenship looga oo ay samaysteen markaa eegtana waa ku caddahay qodobadiisa dastuuriga ahaana waa ku caddahay wixii dumiyeyna waaba sidaas marka annaga waxaan we have one state oo labadii xorta qaadatay ka koobnaa oo meesha noo taalla tii baa naga duntay dhib weynaan kala gaaray waa run koonfur ama koonfuriyaan dhigana the central government of Somalia kama garaabin wixii dhacay mararka qaarna uma garaabin xataa wixii horumaroo jira waxaas oo dhan waa run laakiin waxaa jira oo xaqaa'iqa in ayada kaliya aan hayno anu waxaan aaminsanahay Soomaaliland madaxdeedii inay khalad sameeyeen khaladka ay sameeyeen oo ahaa inay kaleem gareeyaan sovereignty-ga ayaa uga sahlanayd markaa cid ku haysatayba ma jirine inay yiraahdaan waa ka tagnay haddii markaa fakar bisil iyo wax rasmiya oo jira ay jiraan taasaa uga sahlanayd magaala madaxdu waa Hargeysa cigaal mid koonfurta oo ka soo qabtay waa dhihi kare waxaad ii tahay maaragtay vice president and so on we could debate on that haddana international community-gu 30 sano kadib waxay noo sheegaysaa an xaqiiqadana ay tahay sovereignty hadday Soomaali wixii republic la dhihi jiray xabadaasaad haysataan ku dhax shaqeeya ayada had saasaan loo sheegayaa marka inaan sidaas annaga saan uga shaqaysiin lahayn ma super structure aan ka dhignaa ama confederal aan ka dhignaa ama hab kale aan ka dhignaa ma xataa haddaan kala baxayno waxaan u kala baxnaa sidii nidaamka caadiga loogu kala bixi jiray oo waxaan yiraahdaan unilateral declaration ma soconaysee in xataa la sameeyo maxaan ku yiraahdaa referendumka hadda uu weydiiyay Cabdi Xakiin referendumkaas dabcan haddii noocaas oo kale u dhacayo waa in Soomaaliyada xamar maaha yacni inay ayadu gasho maaha laakiin inay marka wada hadal arrintaa ka yimid ay ku timaado South Sudan iyo Eritrea saasay ku dhacday adduunyaduna saasay hadda u dhaqantaa marka waxaan rabnaa inaan isla garanno anu kulley dhowr jeerna hore waanu iri hadda ka hor dood Maxamed Cabdullaahi Cumar oo wasiirka arrimaha dibadda ahaa iyo Cabdi Samatar aan la galnay waxaan isleeyahay hal ay u dhamaanaysaa annagu haddaan nahay Soomaaliya dawlad ma dhisi karno oo xamar kaliya kama dhisi karno taariikhda 30 sano oo la soo dhaafayna Soomaaliland oo maqan dastuurna ma samayn karno electionna ma samayn karno waxba ma samayn karno ciidanna ma samayn xaqiiqada marka loo hadlayo dawladdeena xamarna malaha saas inay u fahamsantahay ama ku baraarugsantahay ma ogi laakiin lisaanul xaalkeeda kama muuqato Soomaaliland intay iska tagto inay caalamka annaga waa baxnay oo dawlad xor ahaan nahay dee lagama soo yeelin 30 sano saa ku socotay mar waxaan iri oo waliba reer Muqdisho qaar badan ay kula dagaalameen maybe this state-ka aan haysano aan Hargeysa ka soo dhisno haddii loo baahdo ama aan meel kale ka soo dhisno laakiin this is tanan haysana state la'aanteedna lama noolaan karo oo maanta waxa waaye dhalinyarada meel kasta joogtay adduunyada yani adduunyadii kugu qasbaysa inaad state haysato marka waxaan isleeyahay yani arrinta ayada ah
in dhaqanka xamar yaalla iyo dhaqanka hargeysa yaalla ee madaxdu uu isbedelo anigu mustafa siduu sheegayana waa qabaayo xorriyaddii iyo midnimadii himilada u ahayd ummadda Soomaaliyeed weli waxaan qabaa inay wax sax oo fiican yihiin haddii eliitkii siyaasaddu ka shaqaysiin waayeen dee kuwana la rabaa inay ka shaqaysiiyaan